xafladan lagu soo dhaweynay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud laguna sagootinay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka dhaceysay hoolka shirarka jaamacadda Afrika ee caasimadda Suudaan ee Khartoum ayaa inta badan waxa looga hadlay waxyaabihii uu soo qabtay madaxweynihii xilka ka dagay imika Shariif Sheekh Axmed iyo taariikhda madaxweynaha cusub ee hadda la doortay مسؤولين aad u tiro badan oo halkaasi ka hadashay ayaa waxa kamid ah kuna hadlay magaca guddiga soo abaabulay xafladan aqoonyahanka Soomaaliyeed Saalax Sheekh Ibrahim Diblaawe arday waxa isku soo qaaday oo qaybsiga iyo sida dawladda loo waxaysanay ittifaaqiyada Djibouti waxa isku soo qaaday siyaasadii kala fogeed ee dagaashaneed iyo heshiisiin oo soo gaartay oo magaceedii qaaday يا صديق قاضي خلنا وحالدينا إن شاء الله وما دام وقت الوقت إلى الوقت أنا قاضي إن شاء الله وقدم بيني ونجيب له الرسول وأنا وقت مدحونا هذا الضغطي كنا كلمة يعني Somalia intii dawladda soo doonaya ama xukuumadda sameeyay waxay Soomaalidu ka tawaaqacay ama ka filayeen wax weyn waxa la mushkilada ka dawladda tan waxa laga filayaa ilaa magaca caafada wadaaday intaasoo sanadna xawaayad baa ku jiray waxay Soomaalidu ka filaysaa wax mucjiso ah oo sameeyo madaxweynaha dinkiisa iyo baarlamaanka ee dhamaan waxa halkaasi goobjoog ka ah mas'uuliyiin kale oo ka socotay wadamada dariska ah oo safarada ay ku leeyihiin dalkan Suudaan iyo kuwa aan walaalaha nahay waxaana goobjoog ka ah xafladan xalay Suudaan lagu qabtay qusulka safarada Djibouti ay ku leedahay wadanka Suudaan mudane Cali Colaad Cosoble waxaan rabaa inaan cadeeyo waxaan ka sheego aan ka hadlayo magaca Jamhuuriyadda Djibouti gudahaan gaar ahaan maxaa weeye safarada Jamhuuriyadda Djibouti ee xudun ku taalo ardayda Djibouti joogto dhammaan shacabka Djibouti in ay hor iyo qiil balaa halkayihiin walaalahuga Soomaaliya sidoo kalena aan soo dhaweyno madaxweynaha cusub Jamhuuriyadda Soomaaliya aanan dawladda uga barayno in ummadda Soomaaliyeed uu ka saaro dhibaatadan ay ku jirto oo dawladdoodii hadda waa ka baxay dawladdii ku meelgaarka ahayd waa dawladdii Soomaaliya oo sida ugu qurux badan ama ugu fiican loogu xukmeeyo ummadda Soomaaliyeed lagana baxo marxaladii hore kolka marka koowaad mar labaad iyo in badan iyaan دكتور حسين بشير وساغن kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed jaamacadaha dalka Suudaan wax ka dhiga ayaa isagana hadaladiisii jeediyay waxa kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hal maraan istaagno Sheekh Shariif sida nabadda ah iyo sharafta lagu soo dhaweeyay laakiin Xasan Sheekh iyo Xasan Sheekh sidoo ugu joogo hal maraan istaagno hambaliyo labadoodaba hambaliyo hambaliyada ka hormarsanaya intii laga bilaabay isticmaalka markuu nagu soo duulay Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis ilaa saacadii ugu dambeysay ee ikhtiyaalka in lagu sameeyay la rabay walaalkan Xasan Sheekh hotelka Jazeera inta ku dhimatay ee daacadda ah hal mar aan dhahno rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iimaan wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim ilaha wada naxariisto Adam Sheekh Xasan Xuseen Adam Azari oo kamid ah dadkii halkaasi ka hadlay salaatu islaamka kadib caawa sida hore loo sheegay waa habeen farxad ah oo loo dabaaldagayo soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed isla markaasna ah sagootintii madaxdii hore marka waxay la tahay waa xaflad nooci ah oo markii ugu horeyso noocan oo kale loo soo agaasimo oo caawa inaan ku daro soodkii dadkii iga horreeyay oo ah in madaxweynaha Xasan Professor Xasan Sheekh Maxamuud loo doorto madaxweynenimada dalka Soomaaliya dowladan
waxaa lagu fasiray inay tahay in loo celiyo qadarinta iyo sharafta dadkii mutacalimiinta ahaa in dib loo yeeleelo macnihii qiimaha badnaa iyo dadkii magaalada xamar intii dagaalada suqeeyay ay socdeen ka dhaxwaday tacliintii iyo waxbarashadii iyo in laga dhex shaqeeyo awoodaha kala gedisan ee bulshada inuu hormuud ka ahaa xafladan Soomaalida habeenkan caawa ay u sameeyeen jaalida Soomaalida dalka Suudaan ku nool ayaa waxay qayb ka tahay xafladaha iyo hambalyooyinka ay diiqrayaan jaalida Soomaalida dalalka dibadaha ku nool waana markii ugu horeysay madaxweyne Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya lagu dhex doorto Fiido Maxamuud Fiido TV-ga qaranka Soomaaliya Al Khartoum Suudaan